يا حركة دلالي ماذا دنتي دستورك يا حركة هدي الضبال السارو دوابكو تيويه هدي الضبال السارو دوابكو تيويه وسؤال دعوينه مدى حدا لنيسه وسؤال دعوينه مدى حدا لنيسه وحلقوا طبيبي وحلقوا طبيبي تدوينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة القر الميامين ومن أتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إخوة الكرام، برنامج كان وبرنامج كلابات oo aan ugu magac daray u heeli runta ama u heeli xaqa in la isradiyo waa wax sax ah. radigu hadduu caafimaad qabo dadkiina dhagaysanayana wax badan baad ka faa'iidaysaan oo waxbaa idiin caddaan idinba caqlaadeenin intaana cilmi iyo majaalistii waad soo fadhideen markii kana wuxuu haya soo bandhigo kana wuxuu haya bandhigo dee wixii saxa idiin kala caddaan qaarkiin waa laga yaabaa wax kastoo faa'iido laba dhinac buu dhib u leeyahayoo duul culamo qastaanna inuu idinka dhigto wax dhici kara laakiin masaa'ilka taariikhdana way soo jiri jirtay masala nin ka qaldantay nin kale inuu saxo ama cawdaha ku saxo ama qoraala ku saxo mana laazimna ma aha inay labadoodu hoos uga shawraano labada qof ay iska daba tegaya inayna weligood bis arag baa dhici karta inayna isku meel ku nooleen baa dhici karta inayna isku qarni ahayn baa dhacda mas'alada ah hebel wuxuu yiri hebel baa ka daba tegay dhib ma laha arrin saxan xaqana saasa ilaahay ku xifdiyaayo dee ninka hadle wax qalda haddaan lagaba daba hadlin ee qaladkii unbaaba tegi lahaa ee ummadda ku bixi lahaa waxay intaa ku soo gaartay waa wax qaldan oo la saxayo nin culamaa masala ka hoos bixi oo il duufi si khalad u fahmi si wax kala jiidan mid kala ka daba imano masalada diin markay timaado koox baan isku nahay tol baa la yahay reehbal iyo waa qaraabi iyo mataqaan xaqu inuu caddaada muhiim xaqa caddaanshihiisuna qofkay qaldamay haddaan la qaban oo warkiisii dunida galee tagay aan laga daba tegin dee wixii way iswada huwanaani wadaad baa hadhow intuu yimaado awliyo waa la baryi karaa markuu yidhaahdo waa khaldan yahay haddaan la dhihin waxaa la dhihi khaladkii baa dadkii ku fidi war wadaadka waa khaldan yahay haddii la yidhahdana waxaad dhahaysaan wadaadadii waa isradinaya war iyagu ha isradiyaan nadhana ha iska taagaan ha isdaba guraan ninba markaa ha halgaadeen idinku miraha gurta oo natiijada ka faa'iidaysta iyaga kii hawo iyo wax kale ay gashana isaga ilaahay aakhiradiisa isu daayo iyaga aakhiradooda ilaahay isu daayo ilaahay subhanahu wa ta'ala culimada ninkii khaldamana ilaahay khayrkiisa Allah u dhaafo kii wax saxana ilaahay jirkiisa hawo runtii shibili si geesinimo leh ayuu u hadlay oo mataqaanaa aan gabasho lahayn warkiisana waa caddeeyey qofka markuu rabo inuu fiildigan culamada soo galo waxaa loo baahan yahay inuu tawaaduc sameeyo oo mataqaanaa ogolaado in la ridin karo waaba yaryihiin dad maanta ogolaanaya in oo la ridiyo marka arrintaasna waa arrin geesinimo lagu hayo marka aniga waxaan usoo geliyay arrintaa iga xiiseeyey oo waxay ahayd
dadka aaminsan oo aniga mataqaanaa shiiqayga oo qabiilkeenna ah ama isku xisbiga nahay yaan wax laga sheegin dadka dhahayo bal ha dhegaystaano shiiqooda ha dhegaystaano dabeetana ayagaa laba dow u leh inay maskaxdooda furaan ay yidhaahdaan bani aadamku wuu qaldami karaa ay sidaasi ku qaataan maxaa la yidhahaa sidaas ku qaataan haddii ilahay kuusan ogol yahay runta qofka waa xor wuu diidi karaa de hadduu diidana afkiisa haysto laakiin shiiqiyuuna daba marin shiiqiis wuxuu leeyahay waa la ridin karaa aniga faa'iida ay tahay qofka iridinaya faa'iida u tahay iyo caamada dhan ay faa'iida u tahay marka taasna waa wanaag la gaaro waa haddii isaa loo heli lahaa in la wada hadlo wax badan baa hagaagi lahaa marka aniga lama hadlayo dadka xorta ah oo maskaxda furan lama hadlayo waxaan la hadlayaa dadkan ama ku socda qaab qabiil ama ku socda qaab xisbi oo shiiqeedna xisbiga iskula jirnay ayaad wax ka sheegtay oo mataqaanaa maaha kuwaas ayun baan la hadlayaa kuwaasna haddee aniga lama hadlayo shiiqooda u jawaabay taas ha ku qancaano maskaxda furan lama hadlayo waxaan la hadlayaa gruubkan oo qabiil aayadahan iyo axaadiistan iyo waxyaabahan la akrinaayo dhan oona u muuqanin runta u muuqanin ee qabiil u muuqdo qabiil u muuqdo ama caadifad qaadayo xisbiga memberkiisa yaan wax laga sheegin mar anaga xisbina waxba kama sheegin shaksina waxba kama sheegin meeshan waa wax qoran waayo waxaas qoran un baan anaga ka hadalnay cid kastana soo wariso hadduu nebiga ay ceeb ku tahay ma qaadanayno cid kasta magac kasta sii abubakar sii ama cali sii ama faatima sii ama caaisha sii ama cid kale sii ma qaadanayno waxaan qaadanaynaa wax alla wixii qur-aanka waafaqaayo waxaan qaadanaynaa wixii nebiga aan ceeb ku ahayn mana filaayo inay faatima wax noocaasa soo warinayso ma filaayo in shaksi saxaabiyahu wanaagsan ama saxaabiyad wanaagsan in waxaan soo naqalayso marka waxay ka mid tahay isbaarooyinkiina mar u dhigtay oo diinta loogu soo daray isbaarooyinkaasay ka mid tahay marka dadweynaheennii laba arrimood buu u haystaa arrin isbaaro shiiqiya ku noqdo intaa isbaaradii kale inay la gaarin isbaaro ka horreysaa jirto isbaaradaas oo ah wadaadadan ayagoon fikirin ayagoon shaandhaynin caqliga wixii ay geliyeen oo cayda ah toos u soo deynayo maskaxdaani marka wax laguu sheega dhigtaani waa inay maskaxda analyze ku samaysaa maskaxda waa maskaxda wax kala saaraysay kala shaandhaynaysay wixii xunna dilidgaraynaysay waxa wanaagsanna soo daynaysay laakiin maanta ma taalo maanta waxa waa wixii wuxuu akhrinayo waxaad u malaysaa maxaa la yidhaha scan wax la saarayaad muddaa oo wixii iska sheegayaa no ma la rabo asxaabta kale oo maskaxda furan qalbiga furan oon cidna haysanin oo xorta ah ma la hadlayo kuwaas way xoroobeen kuwaas waa kuwa ka xoroobay noo tilmaamaysa aayadda oranaysa faman yakfur bidaaquud way xoroobeen kuwaas yakfur bidaaquud way diideen shakadaas dan ويؤمن بالله فمن يكفر بالداقوت ويؤمن بالله maxaa imanaya faqad istamsaka bilcurwati alwudqa xaragaas adag bay qabsanayaan lanfasa malaha aan go-aynin muxuu ahaa maanta cid kasta barnaamijkan la socoto waxay dareemayaan isbarbardhiga lasbarbardhigaayo labada fakradood
meeshaan ha u qaadanina inaan cali ka hadlayno ama inaan ka hadlayno umul ama inaan ka hadlayno shibili ama inaan ka hadlayno kuwa lamida kama hadlayo. meeshaan waxa laga wada hadlayo waa fekerkaas baan rabnaa inaan isbarbar dhigno, dabeetana soomaalida kay ayaga doonaan ay qaataan. waa siduu ilaahay ugu talagalay. haddii jeerna badanaa waxa waaye in ay iska caddahay markastaba inay iska hor imanayaan xaq iyo baadil, sababta laba xaq iskama hor iman karaan, laba baadilna iskama hor karaan. badanaa iska hor yimaado waa laba oo kala duwan oo shaksi kastaba fikrad aaminsan yahay. marka ama waxa aan leeyahay aan rabno inaan ka hadalno waa fekerkaasaan rabnaa inaan wax ka niraa. dadkii ila soo xiriiray dhammaan way mahadsan yihiin. haddana sidoo kale waxaan rajeynaya weliba in xiriirkiina aydan kala joojin, sababtoo ah dadkii labay u qaybsameen. dad si kale cajarkan u arkay aan arkayna wixii meesha aan soo bandhigay ma arkayaanba. waxay arkayaan nin qabiilkiisii halkaa taagan oo wax laga sheegay u arkaya, bicturekaas u arkaa. muxaadaradan socoto iyo hadalladan socdo ma ujeedo qabiilkii ninkii shaksiga qabiilkiisa ka hor yaalla, saas u hor socdaa. macal asaf shadiid dad baa ila soo xiriiray, qaar telefoonna ii soo diray, qaar igala soo xiriiray messageka iyo youtube-ka, meel kastaba ay leeyihiin ninkan shaksiga ah ee qabiilkeenna faraha laga qaado. marka meeshii waa laba nooc. ninna qabiil buu u socdaa, ninna fekerkaas oo aan rabno inaan ka hadlayno ayuu u qabaa. ninna nin maskaxdiisa furay oo aan waxba u aabayeelaynin oo raacaya aayaddii ahayd aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana, oo intuu wixii dhageystay dabeetana wixii wanaagsana ka qaatay oo sidii aan usoo bandhigay anoon cidna wax ka sheegaynin go-aan gaaray ila soo xiriiray ay leeyihiin waa ku mahadsan tahay. dad saasna way jiraan. marka waxaan rajaynayaa maanta aan xoogaa rabaa inaan yaro taabto. markaan mawduuca aan ka hadlaayo shaksi uma jeedo, qabiilna uma jeedo. ninkii qabiil kusoo korayow oo qabiil diin ka dhigtayow aniga qabiil kama hadlin, shaksigaasi qabiilkiisana kama hadlin, wax iga galayna ma leh. shaksigaan qabiilkiisana kama hadlin, wax iga galayna ma leh. waxaan ka hadlaynaa fikir ay kala wataan ayaan ka hadlaynaa. marka taas waxaan u malaynayaa asxaabtii oo meesha qabiil kusoo gashay inay raalliga noqdaan oo meeshaan oo qabiil meeshaan oolin. qabiil hadduu wax taraayo soomaaliya intaas wax laga keeni lahaa. marka maanta waxa soomaaliya burburino waa qabiil. kuwan oo hadda aan ka hadlayna ayaga laftigooda ay waxay qabiilka diinta qabta oo ku muxaadareey. hadda mawduucaasna inaan hadda sii gala ma rabo, barnaamij ka waaweynaa jira. qabiil nin diin ahaan uga hadlay oo fikirkiisii iyo jacaylkiisa qabiilka u qabay ku diineeyey kama hadlayo. maanta waxaan ka hadlaynaa dadka nebiga sala allahu calayhi waaalihi oo wax u geysanaya, dadka nebiga caydooda usoo taagan, dadka aan la gabanin cadigan nebiga caydiisa, aan la xeshoonaynin, afkooda soo marin karin oo mataqaanaa wax wanaaga oo nebiga wuxuu wanaag marka laga sheego oo la yidhi war waxaa cayda ka daayan xanaaqaya. maanta meeshaasaan maraynaa. taasi waa mabda'a masalada guud. ومع ذلك أنك كفرت أعيانا منهم علي الراقي الصومالي. علي الراقي ها waxay ugu dhimanoo ku oga ma jira. hortayna raggii ku soo ogay baan aqaan. taa masalada jawaabteedii intaa way. weli ra'yigaan ka qabin wax iskama bedel.
فكر كود هدا ديدو مش محو دينتا إيو دين لسوما هيستو عقلية دودا يسيري أيغو هو أركان هدا ديدو كار لوتا ريد كار وشيع والله وشيعي بالله يا اسكيل علي انك سو شيع اسكيل علي انك سو قرآني اسكيل علي انك مرتد فكر كان وفكر ما أنت أكتيف كأه أما كفل قلي كشقينيا لك كوفرت لكن ده معنى إذا ماها كوفرت بس أبو فكر كان كجرا ميلها كلا كمجرا معنى إذا ماها وكجرا ميلها كلا بلن وكجرا ضد فكر كاس قبض شوقه سومالان وكجرا أو ضد فكر كاس قبض شوقه أو أسو تاجن عيد رسولك أنا كواسن كهذانا ورعيد رسولك اللي قد دايم والنبي والله سحرية شوكين كان كداية نبقى استاكو كادي نبقى ساعد ناقيس أسو صمري نبقى منطقنا ان هدات راد وركداية وشيع واي ما قرآن واي ما مرتد واي ما قال واي لف نبقى بهدات أسو لوات الدفاع عيسى دفاع وحن شيء مش دفاع تيارك يقربين كما هذا دفاع وحن كوضع وحي الحق بيانس وما علينا إلى البلاغ بس أن بنكوضع دفاع بساس وأرك الدفاع ومدى كسر جذبه وحبات دفاع يائي هلو الدفاع استقال سوب الدليل عرق سوب الدليل عاي سوب الدليل لما ربوا مركب معناها وحويا إن مركب النبي مر الله المخلية وركد داي النبي ساكد داي إلهي أمام بدل بكل شيء إلهي وحيره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن حريص عالمين وهو إذل والرسول إلهينا سبحانه وتعالى وكفانا يو إن ما أنت اللي يراهدو هو استقبك هذه إن ما أنت اللي يراهدو ما لقى شقبه كاديو مركز كي السحابي أكتشوا وكعرري سين كادو قاري وأسنى لي يسلو أوكي مركب وحيابها مركز وركدا يا رسولك waxaa laga yaabaa in dad badan ay madax kor u qaadayaan waa sidii ay kor u qaadayaan waxaan wixii soo naqilay waa fikradaha noocan wixii soo naqilay waa kuwii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi la dagaalmayay 22 sano la dagaalmayay 22 years la dagaalmayay 22 years dad dagaal ku jiray nabiga dagaalkii u taagna muslimiinta badan soo laayay mar allaala markay إسلام لماذا سيكو قاطع حتى ما قرنايو صوت حويان إسلام لماذا حقوق قاطع لما شيئين أو صوت حواي طلقاء باليري يقولوا كان فاذهبوا فأنتم طلقاء باليري لكن مالي هرتكسو إسلامين ضد دين تسور راسلي أو يري النبي هرتيز كعدي إنه إلهي يا رسول كيسب والرميسية مدعين وإنت لو يري النبي أقول هاي ماذا تظنون إني فاعل بكم markaasuu ay mataqaanaa yiraahdeen walaalkeen waa taa walaalkeen ku dhalay markaasuu yiri fadhabu fa antum mutlaqa iska taga waxba leedama haysto waa kuwa noocaas oo kuwa oo waxyaabaha soo qoray oo nabiga caydiisa soo qoray oo sida ingiriiska uu leeyahay if you cannot beat them join them saasi ku soo beereen sababta waxa ka dareemaysaa inta dhibaato dhacday muslimiinta wixii ka dambeeyay rasuulka dhimashadiisii أصحابه بدلوا لله أو دجال بدن لعي أو أنت زو مال يكون مثلواتن كن أو الصحابي مال يكون مثل صدق كن أو الصحابي مال يكون مثل طبعا كن أو الصحابي يكبرن أنا قرنين وكوي سببي أرنتاس يلشودي يفرعوا دي كواس وكوا سببي إن أنتاس إن نفتك جويان ماشي إلهي الأوليه نفت بني آدم كهلا إلى marka fikirka noocaas dadkii watay ayaa kuwana ay wali daba socdaan ee ayagana leeyihiin xornimada bini aadamka marka shariicada ku dhaqmayno waxa shariica u naqaanaana 114 quraanka uu yahay maxaa soo baxaya waxa soo baxaya in bini aadamku xor u yahay dhaqankiisa iyo iimaankiisa iyo diintiisa waxa soo baxaysa waqul alhaq min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur waxa soo baxaysa faminkum mu'min wa minkum kafir waxa soo baxaysa
lasta calayhim bimusaydir qasab kuma lihid waxaa soo baxaysa wamaa anta calayhim biwakiil wakiil kama tihid waxaa soo baxaysa afa anta tukrihu nnaas xataa yakunuu muuminiin dadka maadaa ku qasbaya iimaanka inay soo galaan haddii shareecadu ay noqoto qur-aanka iyo riwaayaadka maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya qofkaani hadduu doorto inuu muslim noqdo ama uu doorto inuu masiixi noqdo ama uu doorto inuu yuhuudda qaato in la yidhaahdo man badala diinahu faqtuluuhu ninkii diintiisa badela dila dil baa imaanaya dil aan qur-aanka ku ool baa imaanaya dil kutiri kuteenaa imaanaya dil aan sharcigii iyo dastuurkii 114 suladood aan ku ool baa imaanaya qofka muslimka oo maantay shareecada islaamka inuu ku dhaqmo doonayo kuma dhaqmi karo ilaa shareecadu buug ayada u go-an ay hesho buugaag afka ka furan ma qur-aanka iyo bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah iyo tabari iyo qartabaani iyo tabaraani baa markaan idhaahno qur-aanka 114 suuradood ayaa massagekii nabi maxamed loo soo dhiibay ah sala allahu calayhi wasalam ayadaa marjicii ah ayadaa laysula laabanaya boqolaal buud oo taariikh carbeed ah iyo dhaqamo la qoray muslimiinta marjic uma ahaa hadallo kutiri kuteen iyo riwaayaad muslimiinta diin uma aha axaadiis been ah oo bani umaya soo qoratay ay kula dagaalamaysa diinta ay kula dagaalamaysa rasuulkana kula dagaalamayeen a'immadii wanaagsanaa ee rasuulku noogu dardaarmay ay kula dagaalamayeen ayaa waxaa u samayseen shakhsigan oo faracii noocaas ahaa oo ka yimid bani umaya oo ibnu taymiya xilligiisina oo wuxuu uga dhigay diin oo uga dhigay oo maantana wahaabiyiintan ay dhaqangeliyeen ay wixii ay qornaaya waxyaabaha qornaa ee dadka ay ku dilayaan ay ku baabi'inayaan adduunka dhan ay ku fasahaadiyeen Soomaaliya, Iraq, Syria, Afghanistan, iska wada adig maanta dhan wadamada islaamka Liibiya, Masar, meel kasta oo aragto waxay ku hayaan 14% oo ka dhib badan wax ka dhib badan ma jiro oo ummadii way fasahaadeen diintii ka fasahaadiyeen oo qur-aankii ka fasahaadiyeen oo wax kasta ka fasahaadiyeen maanta ninka oo caqliga leh oo maanta oran karo aniga rasuulka wuxuu yiri nin yiri aniga kama jecel niyada kama jecel diinta laakiin haddaad leedahay laba salaad duko ama niyada kama jecel barra ku waci karo aniga waa sujuudiya bas qofka shakhsiga oo caqliga ilaahay siiyay muslimka ah oo waxa qaadan kara maxay waa dadka noocaas maanta dadka inay wax u sheegaan raba dadka inay mataqaanaa oo been iyo wax aan jirin awla hore been lagu haystay eedkii ahayd iyo maalin aan London tagay oo 2 or 3 yahay labada maalmood bay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo meel ku xareysan oo dhammaan 4 xaraf qabaan u tagay oo Soomaaliya 4 xaraf ma taqaan four letters saddex uu ku bilowdaa afarna uu ku dhamaadaa HIV markuu dalaca maxaa la yidhahdaa plus ku darmado imise xaraf uga koobma imise leeta wey afar waay afarta xarafkaasaan uga jeedaa 700 oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo xanuunkaa wada qaba uu leeyahay intaasoo AIDS gabdha qabta ayaa hore loogu haystay maantana wuxuu ku darsaday arrimaha noocaas oo uu ka horsheegaya publicly televisionka public uu ka horsheegaya oo maanta shakhsi dareemaya arrintaas inay jirin war yaan ku daalin mardhow waxaa idiin soo gelinayaa sheekhaasi muxuu ahaa oo wahaabiga ah oo noocaas aaminsan oo ku leeyahay ninkii nabiga diido arrintaasna hadda nabigu diido war nabiga ku beer la xoosanayso maahan waxa waa la diidaya waa xadiis been ah laakiin bal ila dhageysa muxuu ahaa sheekh shibili khayran soogna waxaana ka sugan nabiga asala xadiidka imaam ahmed abu ya'la iyo غيرkoodba min xadiis anas ay ka wariyeen in nabiga calaysha nabiga nin u yimid wuxuu yiri aslim warniyo islaam
ninkii wuxuu yidhi ajidunii kaarihan laabtayda iyo naftaydu islaamnimada way diidan tahay nabigu wuxuu yidhi aslim wain kunta kaarihan adoo nacaya iska islaam adoo xdaadu ay nacayso wain kunta kaarihan waana ka aqbalay nabigu sal ly slam waana xadiid saxiix oo silsilatu axaadiidi saxiixa kun afar boqol konton iyo afar ka raadiya takhriijkiisa waxaa kaloo mas'alada toddobaad qofku hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo oo uu shardi ka dhiga inuusan faraa'idka islaamka qaarkood la imanaynin islaam baa loo xukumayaa masaladana nas wey ereygaan idhaahdo nas baan dul saari doonaa hadduu qofku yidhaahdo waan islaami oo waan ashahaadan bishardi inaanan arkaanta islaamka qaarkeed say tahay ula imanaynin nabigu xukmu lislaam buu siiya daahirkiisa 3 xadiid baan idin keeni xadiidka koobaadi nin baa nabiga shardi kula galay 5 salaadood laba keliya isaga inuu tukado oo 3 kale lagu yeelanin inuu saana ku islaamo nabiguna waa ka aqbalo ku islaam buu yiri xadiidka waxaa wariyay imaamu axmed ibn abi caasim fi al-ahadi wal mathani xadiidkii nasr ibn caasim al-laythi wuxuu yiri nin annaga nagamida baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaasuu wuxuu ku islaamay inuu tukada 2 salaadood keliya riwaayada faahfaahsan waxay leedahay 5 salaadood markii loo sheegay wuu maya awqaad aniga mashquul baan ma tukan karo labada keliya tukan karaa buu yiri faqabila dhalika minhu nabigu islaamnimo uu ku islaama shardigaas uu ka aqbalay waana xadiis saxiix oo nabiga ka soo sallam ala sharti imaam muslim buu ku asaxay hatta wuxuu shardiyay salaadaha shanta laba keliya inuu tukado keligii maaha nin baa wuxuu shardiyay xakiim ibn xizaam li rasuulku yimid oo yiri salaadan tukanaya aniga rukuuci maayo waxaan rabaa taagnida inaan ka sujuudo saam ku islaama wuxuu yiri ku islaam isna waa ka aqbalay xadiidka xakiim ibn xizaam waxa wariya nasaa'i abu daawud at-tayalisi imaam ahmed tabarani iyo غيرkood waana xadiis saxiix oo fi horta sixirka sidiisaba waa khayaal waa fiction iyo waxaan jirin yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca buu lahayd waxa ay moodsiiyeen oo indha daraandariyeen nabiyullaahi muuse khayaalkoodii annaha tasca inay wixii yaacayaan xarkiina yaacayaan oo mas oo kala indha sarcaad oo kale marka horta baawar weyn buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska Caaisha warinayso ee sahih Bukhari ku jira waxa tii nabiga la sirxay calayhi salaatu wasalaam Labid ibn al-As'am nin la yiraahdo ayaa nabiga sirxay calayhi salaatu wasalaam nabigii oo qowlkii Ilaahay haya oo qaaidu hadii umma ummadan hogaaminaya muallimu an-nas al-khayra dadka khayrka baraya ayaa la sixray yuhuud baana sixirtay nabiga wixii yaraa uu soo gaarsiiyay waxay ahayd in kana yukhayyal nabiga sallallahu alayhi wasallam kana yukhayyal annahu yujami'u ahla annahu yaf'alu shay wa ma huwa yaf'al nabiga wuxuu dareenkiisa ku soo dhacayay inuu dumarkiisi u galmoonayo dabeedna markaasuu dabeedna waxa sameeyay jirin yaani markaasuu dabeedna ka soo qubaysan jiray markaasuu buu yiraahdaa hawl caynkaasaan galay markaas la ya rasuulallah maad gelin waadiga halkan iska fadhiyay sixirka kaliya nabiga intay ka soo gaarsiin sixirkaana waxa la markaan qaybaha sixirka marayno baynu sheegnaa sixru rabt baa la yiraahdaa oo waa kan ninka laga sixiray inuu gabadhiisa u galmoodo oo dareenkii gabadhiisa uu haynayo baa laga qabanaya deedna markastuu xaggeeda israada u kacba ama siifad aan meeshaba jirna iska wariyo oo balaayo kala hawsan qadho ama waxa weeyaan waxbaba hay iska waaye in waxay waa arintaas marka ducful jinsi buu keenaa inuu ragga ay maartay ducf ku keeno aajis kaliya ducful jinsi waxa la yiraahdaa shahwada oo aan shaqeynahaynin marka nabiga calaysalaatu wasalaam waxa bal nabigu u fiirso arintaas ku keenay markaas wuxuu leeyahay nabiga calaysalaatu wasalaam markaas Aisha waxa leedahay kana yad'u Allah tabaaraka wa ta'ala wa yulahhi fi du'a ilaahay buu bari jiray nabigu markaas ducaada iyo baryadana ilaahay aad ugu dadaali jiray sidaas baana laga rabaa qof kasto inuu ilaahay u baryo وإذا سألك عني عبادي هذي أضومها يجوا إكاوي ديان بلاهيدي فإني قريب وندوي أجيب دعوة داعي إلهي وكو أقبليا إن أدعيت كلابت لدي يدعي وحكا قونا يكسن أضام مضرية رباطيسا إن إلهي برضو وضمارتك هذا مركا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بؤادو بريي لبا ملك بالله صدره لبا ملك هيا النبي هذا الكو مقليا سؤالك ما جوابي waxa labadii malag bay isweydiinayaan ninkan maxaa ku dhacay
markaasay leeyihin waa matbuud waa nin la sirxay nebigii bay sheegayaan waa laba malag yaa sirxay labiid ibnu lascam oo muxuu ku sirxay mashtun wa mishaata wuxuu ku sirxay timihii soo go-ay oo la yidhi waxaa u geeyey timaha nebiga go-ay waxaa u geeyey gabadh yaroo addoon ahayd oo jaariyad ahayd oo guriga nebiga joogtay ayaa yahuudiga u dirsaduu yidhi kaash baan ku siinayaaye ii soo qabo timaha nebiga un dabadeedna waxay leeyihiin timihii nebiga iyo gafeedh baa lagu sirxay oo xaguu geliyey geed timireed halkaasa ayuu geliyey sixir aad u adag buu nebiga u dhigeen calayhi salaatu wasalaam waxaana uga qastiyeen inay dilaan nebiga calayhi salaatu wasalaam yahuuddu marka sixirku wuxuu samayn karaa baawar aad iyo aad iyo aad u weyn buu samayn karaya wabilaahi tawfiiq yidhaahdo war nebiga waa la sixray horta haddii sixir wax looga qaadayo nebi muuse wax looga qaadi lahaa sababta sixirkan dhan loo leeyahayna ujeedada intaa ma ahaba ujeedada markii la sixray waxa ka dambeeya laga hadlayaa ay leeyihiin marka la sixray kadib wuxuu kala garan waayey waxa wanaagsan iyo waxa xun wuxuu kala garan waayo oo inaan waalkiis u tegay in kaloo kala garan waayo ee xaaskiisa umana caaishana ay leedahay yaa rasuulallahi aniga adiga ismaana arkin nebigan uu soo qabaysanayo oo soo laabanayo uu leeyahay kula kulmay caaishana ay leedahay kulama kulmeen marka meesha waxaa ka garanaya in meeshaan caay kale ku hoos laaban tahay waa la sixrida waxaa lagu hoos wataa fikirka noocaasa ayaa lagu hoos wataa war gabadhan hadda joogta Sweden oo ay leedahay kitaabadii baan hayaa wixii aan diinta kaga tegay baan meeshan ku haystaa aan ku arkay iga jaahil bixiya xukunkana igu qaada isoo hor fariista banaanka ha iga xukumina halay soo hor fariisto waxaan rabaa inaan idila doodo gabadhaasi Soomaaliyeed oo Sweden joogto waa loo tegi waayo intaasoo sana ka soo wareegtay haddii wax isku hayaan they know nabiga caydiisa inay meesha ku haystaan ayna gabadha la hortegi karin sababta qofkii kitaabadan akhriyo waa nin ilaahay u naxariista mahane dadkan diintay ka ciirinayaan meesha marka gabadhii iyadoo saasay tahay fariinteeda waxaan rabaa qof kastaba inuu gaarsiiyo Sweden bay joogtaa gabadhaasi contactigeeda ma hayo aniga diyaar u ah inaan wada hadalno inaan doodno inaan ka qanciyo beenta kitaabadaas ku qoran ee ka dacwoonayso anaga ka qancinayna iyo mataqaanaa dilkan iyo waxaan ay sameeyeen iyo cayda ee rasuulka la caayayo habeen imaan loola taagan yahay anaga ka qancinayna marka haddii xitaa gabadhaasi iyo qanaacadaas xitaa diido xor waxay u tahay gabadhaasi ayadoo Soomaali inay ku soo noqon karto ayadoo xor ah oon la taabanin sidii waagi hore jirtay waagii oo lixdmeeyada la qaadanayay laba shakhsi oo gaalo ah ayaa baarlamaanka ku jiray xataa qaar wasiir soo maray safiirro soo maray oo gaalo ahaa xoriyada noocaas la rabaa wuxuu aaminsan yahay asaga ya wala tuzur waziratun wazra ukhra dambigiisa cidna qof loo saar mar calaykum anfusukum nafteena bis an kaw qof kasta naftiisa iyo acmaashiisa adiga meesha acmaasha inta isku soo dardarsatay oo aad leedahay ninkaas saas weeyaan xagee ka keentay marka adiga go'aan yar iska gaarayso oo aad iska xukumayso qofkii marka waxyaabahan ugu digayno waa dadka noocaasa waxaan ka hadlaynaa waa noocaas marka walaalayaal qolooyinkan aaminsan qabiil iyo waxa aaminsan meesha qabiil ma yaalo shakhsina meesha ma taalo fikirkaas qaldan ayaan sheegaynaa inay qaldan yihiin waa dhihi karna waa qaldan yihiin laakiin muxuu ahaa inaan gaarno heer ifto oo been ku iftoonayso kugu soo noqonaysana iftadaas aad leedahay ninkii gaal buu noqday murtad buu noqday war diinta murtad waxay sheegaysa ma qabto qofkii murtad ilaaha aakhira xisaabsan ayaa ku dirsada adiga war naftaada ka fikir naftaada murtad ku tahay intaad murtad oo qof kale ku sheegayso diintu waa xor diintu waxaa la rabaa waxyaabaha wanaagsan in laskaga yimaado oo maanta markaan aan dhahno islaamka maanta laba ayuu u kala baxaa sida hadda ay leeyihiin sidaan aragno labadaas u kala baxaan waxaa weeyaan sunni iyo shiico
sunnidii dadka sunniga maanta ah wax hal sunni la yidhaahdo ay ku midaysan yihiin ma jirto. shakadii al-ijmaac waa dhammaatay, wax ay iskaga midaysan ma jirto. haddii midaysan yihiin hal isugu iman laha sooma, hal imaama iman lahaa meeqa imaamaysanaa? imaam shaafici, maaliki, xanafi, xambali, iyo haddii haddaba wixiiba afka loo sii dhigtay oo madaahib ka hoosey ay sii jajabeen. madaahibtaa waagiiba afar la ahaa la fiicnaa, waagaasaba afar la ahaa oo xooga ay runeed. maanta afartii kasii jajabtay ay maraysaa. xambaligiiya wuxuu usii baxay wahaabi, iyo muxuu wuxuu usii jajabay damjadiid, iyo muxuu ahaa damjadiid aan oran muxuu ahaa kuwii kale akhwaan muslimiin, salafi jadiid, salafi qadiim, ictisaam, iyo wax aan la garanaynin. ayagiibaa maanta isgaclaynaya, ayagiiaa isgaclaynaya maanta, ayagii hawshooda. laakiin waxaa la rabaa bal in isku noqdaan, inuu ilaahay ogolayn in laisgaaleeyo. gaalayntaasi iyo acmaashooda ilaah baa aakhar ku xisaabsanaya, maba lagu dirinba adiga. marka maanta sunnigii way jajabeen, saasay tahay shiicadii way jajabeen, oo shiicadii naftirkeedii way sii kala jajabtay, oo waxay noqotay, waxay u kala baxday ithnaa cashariya, waxay u kala baxday zaydiya, iyo maxaa la yidhaha iyo ibaadiya, iyo kuwa jajab kale aanan la xisaabi karin. marka waxaa loo baahan yahay inaan mid ogaano. marka sheekadan sunni la yidhaahdo maanta nin kastaba sunni buu sheeganayaa. ithnaa cashariya haddaad tiraha war sunnida rasmiga oo rasuulka midinkaa ah, nacam sunnada rasmiga annaga ah. zaydiinta sunnada rasmiga annaga ah, nebiga farciisa kasoo jeednaa, okay. sunnada rasmiga annaga ibaadiyad waxay tiri sunnada rasmiga annaga ah, okay. qof sunno diidaa ma jirto. maliki sunnada rasmiga waa aniga, okay. shaafici sunnada rasmiga waa aniga. horta kelmadda sunniga ah way jajabtay, ijmaacan waa dhammaaday sheekadiisi. haddii ijmaac sheeko la yidhaahdo riwaayadahaas kale ka akriya, ijmaac la yidhahdo ma jirto. walaa shiica ijmaac suufiyaan waxaan jirin maxaa la yidhaha shiico ijmaac ah, walaa kuwan ijmaac ah. horta sheeka ijmaac la yidhahdo waa la kala jajabay, xataa suufidaa jajabtay. marka waxaa la rabaa in siduu ilaahay na amraayo in annagoo saas u kala jajaban, annagoo saas u qaybsan, qolo kastana shiico ah. shiicada laftigeedu una ha u malayna sunna xitaa shiicooyin waa kooxo, waa firqooyin. shiicadu waa firqo kastaba waxay raacsan tahay ninkii imaamkaas u ahaa, oo mataqaanaa imaam shaafici, shiicatu imaam shaafici, shiicatu imaam maliki, shiicatu imaam xambali, kuwana shiicatu zaydiya, shiicooyinku waa badan yihiin, oo qolo kastana waa shiico. horta kelmaddan shiicana xaggaasaan iska dhigno, ayagana waa shiico ijmaac la yidhaahdo ma jirto. shiicada nafteeda waa qaybsan tahay. haddaba waxaa la rabaa ayagoo saas la yahay, loo qaybsan yahay, inaan waxyaabaha communalitiga ah aan iskaga midoogno. oo maxaa noo sheega aayadda noocaas noo sheegaysa maxay tahay? ilaahay nebiga ayaa waxa lagu leeyahay sala allahu calayhi wa aalihi, waxaa la leeyahay ahlu kitaabka waxaad ku tiraahdaa qul yaa ahlulkitaab yaa ahlulkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaau baynana wa baynakum. war aan isugu nimaadno hal kelmo aan isugu nimaadno oo ah an laa nacbuda ila allah, inaan ilaahay aan caabudno, aan wax kale aanan caabudin. walaa nushrika bihi shay-an, waxna aanan ku sharig yeelin. waa qodobka labaad. walaa yataqidu bacduna bacdan arbaaban min duuni illah, haddana aynaan laga yeelanin muxuu aha qolooyinkan wadaadada ah oo safiirada ilaahay iska dhigaya, oo ilaahay wakiilkooda iska dhigaya, diinta dadka ka xigsaday. kuwaasna mataqaanaa yaan loo dhawaanin oo laga fogaado. arbaab ah inaan laga dhigan oo ilaahay nooga dhow yaan laga dhiganin. fa in tawallow, haddaba hadday diidaan, faqulu ishhaduu
biannaa muslimuun hadday diidaan waxaa leedahay waxaan qiraynaa inaan annaga muslim nahay that's it meeshaan dil kuma jiro colaad kuma jirto nacalad kuma jirto naar kuma jirto bidc kuma jirto waxaa leeyahay haddaad diiddo anaga waxaan qiraynaa inaan annaga muslimiin nahay ilaahay saasoo naga rabaa oo wuxuu leeyahay laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alqay waxaa la rabaa mar kastaba aanan diinta ayna qasab ahayn laakiin wixii xaq ah iyo wixii baadil oo kala cad yihiin waman yakfur bitaaquut wayu'min billah markaad rabto inaad ilaahay aaminto waxaa khuraafaadka ah oo aada aaminsan tahay you have to throw it in the bin waxaa ka mid ah nabigaa la ceejiyey nabigaa nin gaala wax usoo sheegay nabigaa cabsaday oo laga cabsiiyey malagga ka cabsiiyey nabigaa mataqaanaa la sixray nabigaa istaag ku kaadiyey nabigaa injir qabay nabigaa allahuma salli calaa maxamed waali maxamed ilaahu afkay ka dhowr kuwaas oo caddaystay oo rasuulkii cayay meesha ula taagan dee anaag barkaan waxaan waa waxa ay ka wada saman yihiin wallahi in hal shaksi maaha waa waxaan fikr jira waa marka yakfir bidaaquud waxaan aada rasuulka aada ku caynaysaan oo khuraafaadkaad aaminsan tihiin oo qalbigiina ku jiro yakfir bidaaquud horta aamin waxaas iska kufri waxaa taa war waa bendeh wayu'min billaah kadibna ilaahay aamin ilaahay ma ogolo adoo khuraafaadkii wato inaad ilaahay aaminto ilaahay ma ogolo wuxuu leeyahay khuraafaadka banaanka sare waa adoo hadda qol degaayo oo qolkii markaad degayso hadda qolkii inaad iska hagaajiso horta wixii wax qashin ku jira inaad ka bixiso maaha kadibna alaabtaadii cusbeyd awdatay aad soo dhigatay ama alaabta axabta aad soo dhigatay sidaasoo kale likewise ayaa ilaahay wuxuu rabaa qashinka la wato oo qalbiga lagu haysto memoriyada lagu haysto in taladska dilid gareeyo oo weliba adoo ku faraxsan oo dhahaya allahuma innii acuudu bikum muxuu ahaa allahuma innii bari'un minkum iska dilid garayso kadibna aad tiraahdo ilaahayow adigana waa ku rumaynay rasuulkii aada raxmadda ahaa rasuulkii dabeecadda wanaagsanaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin yaa saadiq alamiin yaa awal saasaa la rabaa kadib inaad bixiisa u aaminto haddii kale muxuu ahaa waa un laska hor imanayaa midna aan ogaano sideedaba ilaahay wuxuu leeyahay allahu liladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur waladiina kafaruu awliyahum daaquut yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat ilaahay wuxuu rabaa inuu dulumaadka naga soo saaro dulumaadkan waa firqooyinkan badan oo badan oo laisku haysta maanta oo laisku baabi'inayo waa firqooyinkaas o dhan waa dulumaad si kalaa u qaadana xisbiyadii marka iyo xisbiyadii diiniga ah oo maanta hadda maanka qolooyinkan oo salaf jadiid iyo salaf qadiim iyo ictisaam maxaa lasu gaalaynayaa ninka wuxuu aaminsan yahay oo aaminsan yahay uuna ku dhimanaya waa saas marka si uu isu difaaco marka waa inuu wax gaaleeyaa no matter aniga si ila tahay wax ila tahay ayaan u gaalaynaya qofkii inay diinta qabtana maaha marka haddaba ilaahay bacdama uu leeyahay min adulumaati ila nuur nuurku waa hale hadda meeshaan firqooyinaa jirto sunniyaan midaysnayn shiican midaysnayn waa la jajabay saas iska dhabalaaday 5 iyo 5 kala badi hadda waa yahay nuurkan waa halaal yiri shantiyo iskhilaafsan oo isku magac wata macquul ma inay nuur kasta wada haystaan ayagoo isdiidan haddii la soo goliya halaal noqon lahaa inaad garo ya sidii hadda waageena ciidanka soomaalida jiri jiray ama dowladda jiri jirtay maanta hal bay ahayd ciidankii maantana waa la kala jajabay waa saas oo kale marka kuwaasoo kala jajabana qoorta isugu jira oo saasoo sii soo jeeda waa isku hal aaminsan ma la dhihi karo no waxaa la dhihi kara waxay aaminsan yihiin markuu ciidanka midaysan yahay sidaasoo kale xisbiyadan iyo waxaan oo dhan waa la mid marka ilaahay laakiin wuxuu leeyahay nuurku waa hal marka halkaas waxay u baahan tahay in la sabro
in muxuu ahaa bal adiga aada ilaahay barido inaad afkaaga nebiga ka dhowrto ad muxuu ahaa afkaaga ka dhowrto wixii caay ah afkaaga ka dhowrto in qof gaalayso afkaaga ka dhowrto ilaahay wuxuuna xisaab inaad xisaabsato sababtoo xisaabtan ilaah baa iskale taas ayaa muhiima dan waxaa markaa kadib waxaa dhihi kara haddaba bacdamaa iskhilaafsanahay aniga waa saxsanahay adna waa saxsantaa leedahay kan wuxuu leeyahay ana waa saxsanahay kana waa saxsanahay anaa ilaahay u dhow kana ilaahay u dhow laakiin yaanu dagaal imanin adigoo ilaahayga u dhow aniga ilaahay u dhow haye bal aakhira ilaahay na xisaabinayo oo mataqaanaa yaanan ku degdegin maxaa la yidhaha muxuu ahaa oo sabr aan yeelano oo nebigaa leeyahay nebiga waa laftigiisii markii barashar ka batay waxaa ku badnaa munaafiqiintii oo saxaabada ka mid ahaa waxaa ku badnaa niman muxuu ahaa mushrikiintii waxaa jiray niman maxaa la yidhaha hadii ahlu kitaabkii iyo kuwa hoos cudurka qaba waxyaabahaasoo dhan iskugu jireen oo gudihii nabigii ka haystay arrimaha dibaddana waxaa ka haystay qolo kale oo ayagana quwado aada u waaweynaa xilligaas oo ahaa romankii iyo iiraan oo ayagana markaas awood lahaa oo ayagana kolba tahdiidaad soo diraya dad soo diraya iyo jawaajiis iyo soo diray ay leeyihiin hala soo qabto ninkaas waa in lasoo qabtaa ninkaa nebinimada sheegtay oo waxa aad ku sheegaysaan rasuulka asoo qasli qabo ayuu dadkii dujin gaaray oo macnaha marka la aqimi kadib haddana oo xasuustay inuu qasli qabo waa rabish kale waxa aad ka sheegaysaa markaas saxaabadii ayuu taagan ayuu intuu orday ayuu soo qabaysaa asoo hadda biyo madaxiis ka da-ayana soo noqday waa rabish may rasuulku waa uswatun xasana waa ninka ku daya leh buu asaga walaalayaal darsigan waa darsigii 20aad kitaabkeeni aan akhrin jirnay mukhtasaru saxiix al-bukhaariga ahaa kitaabka aniga iyo qoranca waxaan ka bilaabaynaa xadiiska 189 oo waxaan ku jirnaa kitaabul ghusli waan ku dhex jirnaa dhaxday baa jinaaba ka timid isku junuubnaa qabo faqala lana wuxuu nagu yiri suubanuhu makaanakum mashina boskina tagnada thumma raja'a uu noqdo salaadina meesha ka sii wado oo ma kala goynayso salaadaydi waa ka kac mar hadday shaygu nijaasaha ma dhahaysi ilaa maadan ogeyn ilaahay marka anaga tababarna la tababarayo waxaanu dhan tababarna la tababarayo way waya عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة صلاة لا أقيمي وعدلت وحا لسمي الصفوف تبع لسمي قياما عيدو لتاغن يحي فخرج وصوبحي قياما حال لتاغن يحي أو ضدك أي صفيين صفك أي كجران فخرج وصوبحي إلينا أنه نوصوبحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فلما قام مركو استاغي في مصلاه ميشو كنت كان يوم محرابك وقلي ذكره حسوستي صوبانه أنه جنوبا إنه جنابا قبو فقال لنا وحو نوير صوبانه مكانكم مشينا بوسكينا تغنى ثم رجعه النقضي فاغتسل واقو بيستي صوبانه ثم خرج إلينا ونصو النقضي ونصو بحي والرأسه والحال رأسه مدعيسون يقدر اتفقيه بيئك الدعيان فكبر وتكبير صدي فصلينا وان تكنا معه النبي معيسان لا تكني تصالح قرآن مركو النبي النو سمينا يوحو يري وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم آية أفراد وإنك أذو النبي محمد لعلى خلق عظيم وحاكس وانتهي الدبيعد وناكسن دكن يهده فن بقال لك في النبي صلى الله عليه وسلم الخلق أو على لغا عبري أو عظم للراعيي وعلى وأخلاق تحيط به كر إيهوس أخلاق مقال كيسة شرف تيسة هذا الكيسة هفنان تيسة نظافة تيسة قاب هذا الكيسة كل قصي سوي نبي محمد بعدك عايش ري مرتا دون إنه لا يماده كيل من وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد بقى وسخيسنا إنجر لها دون إنه لا يماده كيل منه وإنك لعلى خلق عظيم نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه oo 9 xaas oo xalaal lahaa
sagaal dumar oo xalaala lahaa waxay la tahay albaab injiri ka soo gasho nabiga ilaahay baa ka xiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh annagoo 2 iyo 3 iyo hal iyo 2 iyo 3 ninba tabartiis gabdhaha muslimaadka jeesaha naga fadhiya allaha noo daaye oy jacayl iyo khidmad iyo wanaag jeesaha nooga fadhiyaan baa wasakh iyo injir iyo midna noo soo dhawaan weyday maxaad moodaa imaamu taahiriin salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh markaanu aasaaska qur-aanka oo muqadaska ka duulayno iyo tilmaantuu nabiga ka bixiyey arrintaas way qotonsanaysaa ha wax alla wixii kaloo soo arooro arrintaa ku saabsan ama qofkii yidhi baa khaldan ama siduu u sheegay baa khaldan asaga iyo allihiis waa ka nabiyullaahi moxamed qur-aanka ilaahay baana baray wa inaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaahay ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi moxamed qur-aanka wuu noo sifeeyey wuxuu noogu sifeeyey inuu ahaa rasuul annaga naga dhashay oo naga tirsan oo ilaahay uu noo soo diray laqad jaakum rasuulu min anfusikum waxaa idin rasuul idinka mid ah min albashar ummadan rasuulkeedii ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh casiizun calayhi maa canidtum waa nebi ay ku adag tahay waxa dhibkiina ah idinma quuro xariis buu mu'miniinta ku yahay u ilaaliyaa dhibkuu ka ilaaliyaa dhibaato lama rabo halaag ummadda loo soo diray oo dhan buu dhibaatada ka ilaaliyaa ra'uufun waa nebi turid badan oo raxiimun naxariis badan caawa alla haddii la addimahayo oo dad buu xasuuqay 700 qof buu meel ku laayay saqiir buu laayay niman yahuudu god u qoday halkaasuu 700 ku gowracay waxaasoo aayadaasaa fuuqsanay aayadda qur-aanka waxay la mid tahay ushii nabi muuse markii fircoon iyo sixiroolayaashiisu ay masas jasa u daadiyeen fa idaa xibaaluhum wacasiyuhum yukhayalu ilayhi annaha tasca markay saa u daadiyeen ushii nabi muuse maxay samaysay fa idaa hiya talqafu maa ya'fikuun wax alla waxa been abuur la sameeyo nabigiibaa saa ahaa nabigiibaa qof alaflagaadeeyey nabigiibaa dhibaatadaa geystay nabigiibaa injir marka la yidhaahdo waxaa fuuqsanaya aayadda qur-aanka oo nabiga tilmaantii saxdaa sheegaysa baa fuuqsanaysa ayadaa halkala baxaysa ilahi wuxuu leeyahy sida nebi muuse loo cayn jiray ha u caayana ilaahay baa beri ka yeelay hadalkooda annagaana la hadlayaa ilahi wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu ittaqu llah ilaahay ka baqa taqwad maxaa lagu helaa cadaaladda inaad runta ka sheegto ittaqu llah waquuluu qowlan sadiidan war wax wanaagsan ka sheega rasuulka maxaa dhacaya haddaan wax wanaagsan rasuul ka sheego ammaano waxaa imanaya yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum bal ka war acmaashaadii iska dabooladka ahabaa la yarsaxayaa dembigaagiina waa la cafinayaa marka waman yutic allaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan cadiima kadibna waxaad helaysaa liibaan weyn baad gaaraysaa markaad haddii aad adigii cay u taagan tahay oo aayaddan qur-aankan ay leedahay yaan la caayin aayad qur-aan kale ay leedahay rasuulka qofkii caayo nacalada ku dhacaysa aniga meesha loo socdo ma garanayo cidda dadka waxaas aaminsanne dee hawshaas idinkaa idin daayay anaga uma calayna ila albalaaq laakiin ani kolleyba dadka badan muslimiinta sii aaminsan yihiin inayn dadka badan intooda badan in waxaan aaminsaneen waa firqa yar wax aaminsan ay leeyihin wax naga galay annaga male waa qaadanaynaa xadiis nabi saxaabna soo yiri war sabaariya la dhigtay dadaas ka soo qoray mada naga soconay waa qaadanaynaa anaga war rasuulka ma raacaysa aniga rasuul waxaa naga gelin warkaasaan raacaya rasuulkii warkiisii iyo qur-aankii warkiisii oo intaasoo ammaan sheega leeyahay waa la diiday bal hadda sheekadan markay soo socoto waxaa weeyaan horta nebi muuse laga soo bilaabay caydiisii waxaa lagu soo xijiyey inuu isqaawiyey oo dadka soo qaawan horumaray cajiib haddana waxaa lagu xijiyey nebi ayuub ayaa waxaa kusoo daartay ayax ka samaysan dahab aa layirioo markaas isna maradii furtay oo dahabkii ku aruursaday intaas waxaa loo soo dig idam leeyahay waa rasuulkeena sala allahu calayh waaalih intaas waxaa loo soo dig idam leeyahay waa rasuulkeena marka waxa nimankan oo rasuulka
iyo dadka wanaagsanaa diidana xilligaas oo waxaan soo qoqoray isbaarooyinkaasi soo diiwaan geliyey waxa weeyaan waxay ugu talagaleen in ay waxay aaminsanaayeen ee dadka ka dambeyna ay geliyaan. That's the idea. marka isbaaradooyinka dadkii la soo dhigay isbaaradii ilaa maantay socotaa. haddaad tiraahdo war caqligaa diidaya sheeqaagan dadka caayaya oo haddaad iraahdo waxaan arkay umarba ku kaadinaya qashin qobka ama iraahdo injir buu qabaa amaan iraahdo waa la xanaaqaya ama iraahdo xalay 2 jeer oo naagtiisa u tagay waa la xanaaqaya kayf rasuulka marka ay tiraahdo hadalada noocaasa ku tiraahdo marka bal meeshaan annaga shakhsina ma haysano waxna ma haysano waxaan haysanaa arrimaha beenta ah ee rasuulka lagu ceebeynayo umbaan arrintaa ka hadlaynaa. wallahi baan ku dhaartay innahu amar yashaaniye lanadabun baa ahaa nabaro ayaa ahaa bilxajari dhagax gooni buu uga dhex bixi jiro gooni u qubaysan jiray faqaaluu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaarnaye maa yamnacu uma diidahayo muuse an yaktasira inuu qubaysto macnaa annaga maceena oo isna uu dharka dhigto isqaawiyo uma diidayo ilaa annahu aadaru inuu sheelo leeyahay ma ogi sheelu leeyahay sheeladu waa cudur ragga ku dhaco xiniyaha barar iyo markaa waxaasoo qarinayaa bay leeyihin markaa waxaasoo qarinayaa fadahabad uu tegay saasay iska dhaadhiciyeen marka ninkan wuxuu keligii doorka ugu qubaysanayo waxbuu qarinayaa sheelu leeyahay فذهب وتجي مرة يغتسل أسوق وبيسنة يوم ماشي صدور كعب وهذا كلي فوضع وحو دقي ثوبه مرديس على حجر دقح بدل ساعي ففر عرضي الحجر دقح با عرضي بثوبه مردي بلا عرضي دقح با أرضي ووحو أرضي ماشي شوقي إن منك بني إسرائيل فخرج وبحي موسى في إثر الراد كيسو وعير صدي أسقون وضبق لي يقول أسقوا لموسى صوبي مرضي إذا يا حجر دقحو والمرضى يدك وي صوبي يا حجر حتى نظرت إلهي بحكمتك وتمشى حتى نظرت إلى أي فيرسي أركتي بنو إسرائيل ريب بنو إسرائيل إلى موسى إلى ياركين فقالوا وحيدهن والله بنقول أرني ما بموسى كما سجنو من بأس وحدب أكون سجنو أنا أسوشجني بانه ما لما لقى وفيويهاي أنت أصلا بإلهي وقتشيد إنه يهوب صدان إنه يسمى وحدبه هويرتين وصنعين وأخذ وقاته ثوبه مردي سنة وقاته فضفق وحو بالله موسى ضربا قراعيس بكو بالله بالحجر دقح وقراعيسكو بالله فضفق بالحجر ضربا معناها صهر مري ضربا فضفق وحو بالله وقدق لي موسى ضربا قراعيس بكو بالله بالحجر دقحي إنه قراعيو فقال أبو هريرة وحو يري والله بان كدرت إنه أمر يشانية لندب باها نبرق أياها بالحجر دقح نبرق كويا لي ستة سلام مركو قبيسانيي مركا سيدا سال الله كيني مركا كانت وحي عيد بنو إسرائيل ريب بنو إسرائيل يقتصد ضربا قراعيس بكو بالله بالحجر دقحي كيسا كسو داتي فجعل وحو بالله بي هذا كلي عمل مري هدي من ذهب سمده كسو داتو maxaad fari lahayd marka nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waa qubaysanayaa waana qaawan yahay faqarra calayhi waxaa kusoo dhacay dushiisa kusoo daatay jaraadun ayaxoo min dahaba fajacala wuxuu bilaabay ayuub yaxtasi inuu ku gurto fii thawbihi maradiisi halkii maroos qabay buu bilaabay marka inuu ku gurto uu ku aruursado inta gurubsado dahabkii maradii ku gurto وانا قاوين يا مركان فناداه ربه ربي شاء دواقي يا أيوب ألم أكن ميانا أهين أغنيتك متك الداقي عما ترى واحد وجيده ميانا كدرتين أولا كالداقين واحد قرانيسو قال وحي نبي الله أيوب عليه السلام
بلا ها وادي قد دق إن هذا قد دق نسكداية وادي قد دقضي وادي دقضي وادي قني وادي قد دقتي وحول بوادي سيس وادي برتشي بلا ها وعزتك عزة ذا كل أرتي لكن لا غنى دقتون مجر بي أنا جاي سكنادي عن بركتك بركة ذا كدقتومي وافضل ديراد هو أصلا واسك قرنية لقى ما درجي وبركة هذه سوما جديد وبركة هذه مركب بركة هذه كما دركتو بركة أنا سقرنا يا مركب محل شاهد كإمام البخاري حديث كوكي يعني هذا ماشان وحويه وهراء أصل شجنيه قفكو يسقى قاون وحبا حرنين كلي مال دورة أما مسقول مال حرن مقبيسن كرا ها وقبيسن كرا حديث النبي الله موسى عليه السلام نواسو عرقني نبي الله أيوب عليه السلام نواكنا حديث فيه ووحو لي أي إمام البخاري إلهي وحو سبحانه وتعالى كوعنانتي نبي الله أيوب ذهب كوقرنا يالو عنانتي لكن محاد يسوقها ويسي لما دهين محاد دركي قاد قبتي الذهب وقرنا يسا لما دهين الذهب كمحاد وقرنا يسابه ليلي فسردنا وحي يخضوا عيسى حديث كهراء شرع من قبلنا ويخضوا عيسى صلى الله عليه وعلى آله وأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ريها فقضى وسوقت النبي حاجته حاجة مركا سيعد إلى سحر كون نقبه ولقيت كان كلام إمالين علماء waxay maaragtay waxa ayadana sugan dhalinyaro uu yahay uu leeyahay hadaad iska furu lahayd oo dhagxaanta tunka aad ku wada ay iska bal mushkilada jirto asigiiba xadiiskii carabi ahaan u saxay grammarka xataa inuu waxa la soo dhoobay inay meesha laga garanayo oo la rabay meeshii uu yiraahdo waxaan xataa qaldan عقلنا ديدايو كرامر ahaan u qaldan ma soconayso inuu yiraahdo samahayn asigii baa saxay marka soo qaadanay waxaas ya في الليل والنهار ماشي ذولي في الليل او النهار ان هذا اساسي ahayd marka waa musiibad ma meeshii jirto wixii xitaa hadii asaas u qaldan yihiin wuu iska qaadanaya hadii dadka hortooda asigoo sheekh meel fadhiya la yiraahdo sheekh xalay sheekhan hebla xalay naagtiisa laba jeer u tagay hadii la yiraahdo waxa laga yaabaa in meeshaas mashaakil ka dhaco gar iyo dhibaato iyo dagaal yimaado laakiin nabiga oo u goliyay bal xishoodka meeshii xishood darrada meesha taala nabiga oo u goliyay de marka waxa loo baahan yahay in la fikiro la xisaabtamo oo سؤال كلام هذا باش كلا صباح حبا وريا سو وريا ما نبيجا الشيء لما أورد بالأيك مش تعيد مش تعالى نبيجا صار الشيء لما أورد وحل هذا هي كتركتان وعلي الشيء وكتركتانتي كتركتان لما غالبا أحاديث ولا غالبا يا أحد ساعات بقى كل شيء كالسنة وحاجة بعتين إذا كل شيء كسنة نمك دوان قليين لكن هو كتركتان وح نبي قصة ناضي مركز أنا سؤال شيء قصة بحد ذاك الشيء قصة كتر مامو إلى هذا صار مال فردية ضد بين الله فردية أنا حالي لا بتشر لك وتجي وعرفنا برايفت هو والله سوق الصناعة وحتى بقى برايفت كرسول كأنك كور يا أرمها برايفت الرسول كي بالكور أيضا وحيل هاي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وريا إذن مي يا ماشي تجلس كصوريس إلا ماشي حكنا بيان بي حكم القرآن كأول بالأحاديث إن إسكور مريان قولين كان خشة كسنة أيضا حقيقة مريان مركا وحيابو وحجرو أذيك قصة نقنية عقلنا ما واحد نفط هذه أديدي إن الرسول كتل مانت حرام عليكم
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. أنس بن مالك وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمك رسولك أي حديثك وريي. قال وحر أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يدور مدك وريق على نسائه هوينكي سودان مد السمرو في الساعة الواحدة هل ساعة قدهيد ساعة مركة تنعى نقانو لحظا كالدقيقة معها مجرين لحظا كالدقيقة واقع مجرين مركة في ساعة واحدة هل وقت قدهيس قدر أدوه ماركتي هل كان ساعة نقانا آن أهين فمركة يقول شيدا كان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يدور مدك وريق السمر على نسائه هوينكي في الساعة الواحدة هل ساعة قدهيد oo min al-layli saacadaas min al-layli habeenka kamida wan nahaari ama maalinta kamida min al-layli wan nahaari waxa ka fiican la yiraahdo min al-layli aw an-nahaari aw in la yiraahdo aw ama wowga bimacna aw lo martay loo ta'wiiliyo min al-layli habeenka kamida aw an-nahaari ama maalinta kamida ama habeen gudihi uu sumari jiray saacad kamida habeenka saacad kamida maalinta uu sumari jiray haweenkiisa oo dhan وهن هوين كاسنا 11 كوبي طبعا بيحاين وفي رواية كلا 9 نسوة سقال هوين هاي أحاين سقال هوين قيل لأنس بوحا لغيري وحا كنا هينا وتابعي حديث كوري أنس بن مالك أن قتادة ابن الدعامة السدوسي نكل يرايا قتادة تابعي قتادة اللي يراهدو وقيل لأنس وحا لغيري أو كان معها يطيقه متكرو إنه يسمره هوين كاسقالك أما كوبي تمن كأنه يسمره ما هو ذكري النبي صلى الله عليه وسلم وما كري قال أنا سوحير كنا وحنا هين نتحدث كوكوشا كيستو أنه النبي أعطي إن لسي قوة 30 صد أودد إن لسي صد awoodood iyo dadnimadood iyo kartidood iyo raganimadood in la siiyey baan ku sheekaysan jirnay maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dajiyay ciidanta markuu dajiyay khabaab baa weydiiyay ya rasuul allah awahyu awhaahu allah ilayka ma ilaahay baa ku waxyooday meesha inaan degno am harbun wa makida mase xeel dagaal baa sida khaan noqotay rasuulku u sheegay war la iima waxyoone quraanna kuma soo degin aniga maxamed ay ila muuqatay خباب محير ماشي وأيول ميل الدجنا معها رسولك الله ونجاكحي نبي محير هيه ماشي خباب إشارة باللوجوري مس أن عليو أن قضب كان أضحستي حديث كان هو كودي دنا هاي صوته حويا إلهي سبحانه وتعالى حوليه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ماشان وحان معقولة هين عليو إن dadkii rasuulka inuu saxaabadii intuu howlgeliyey dagaal la geliyey oo howlgeliyey oo ilaahay amray oo awaamirta ilaahay ku socdo wax jeebkiisa kaliya uusan ahayn haddana waxa uu samaynayo oona garanaynin waa abbaanduulihii oo tiraahdo meel on aqoon u lahayn oo dejiyo askarigii baa saxay meeshaas iska diidaysaa marka haddee calmi xaloola xadiis waa diiday waa xadiista haysto laftigiisa marka arrintaas caliyow aniga kulleyba saas ma arko rasuulka ilaahun baa saxaya inta rasuulada kale sida loo saxay asxaabtana waxaa saxaya nebigaa saxaya sala allahu calayhi wa aalihi waxaan filayaa inaad qaybtii labaad ee uheelo runta aad dhegeysateen waadna maqasheen isbarbardhigiya weli ku jiraa oo sababtoo ah cali waxaan meesha ka ogaanaynaa inuusan diidanayn axaadiista oo dhan inuusan diidanayn laakiin ninka muslimka ah
wuxuu diidayaa axaadiista nebiga lagu caayayo muxuu ahaa oo been abuurka ah ayuu diiday. taasna waa xaq in la diido, wixii nebiga ceeb ku sameynaya waa in la diido. marka hadda ninkan kale oo wuxuu ku gaaleeyey axaadiisuu diiday, bal waayahay axaadiista uu diiday iyo waxyaabaha oo xali lagu haysto asaaba sheega wuxuu yidhi xagga ku kaadiyey iyo injir baa gashay, waxaas diin ma aha buu yidhi. bal wadaadkan mar been buu sheegay, waa qolooyinkan waa dabeecadii u tahay, diinay u tahay been in la sheego. oo mataqaanaa meeshan uu ku leeyahay naagan kusoo arkay oo aidis qaba, waa been. mar labaad waxyaabo diinta ka hor imanaya ayuu anaga diin nooga dhigay oo ah wuxuu ku leeyahay nin baa nebiga yidhi war islaam, markaasuu yidhi waa kahanayaayo waa karhayaa. war adoo karhaya islaam, war diinta waxay leedahay laa ikraha fi diin ya diin laa ikraha fi diin meesha taallo. adoo karhaya muxuu ahaa islaam, war shuruudan wata haddii saas tahay. hay shuruudda maxay tahay? 5 salaadood 2 baan ka dukanayaa. war okay la yidhi. ninkii kalena maxaa la yidhi? anigana waa karhaya. war bal adoo karhaya iska islaam, shuruudan wata. hay shuruudda maxay tahay? shuruudda waxay tahay in muxuu ahaa aan rukuucaynin oon toos u sujuudaya. salaadaha 5 oo idil maba rukuucayaba, laakiin waa sujuudaya bis. war okay la yidhi adigana. marka wuxuu ku leeyahay cid alla cid waxaas la timaado in mataqaanaa ay diinta waafaqsan tahay. bal waxaas hadda dadka loo sheegay. waxaa naga gabagaba ah qaybtii labaad runta u heerlay. qaybtaas hadda waa naga gabagabo oo khaladaadka ay ka mid tahay oo in la diida xaq ay u tahay. insha allahu tacaala saasaan ku gabagabaynaynaa. qaybtii 3aad ayaa noo bilaaban doontaa. xaqan waa noocaas. hadday idinkaa jawaabtii idinkaa idin daayay, marnaba ma xukuminaya gaal waa kan waa midna ma oranaysa. idinka xaqa idin daayay, idinkaa go-aan gaari doona. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi. haddii daba la saaro dawa bukotay weeye, haddii daba la saaro dawa bukotay weeye. waa su'aal da'wayno madaxa daalinayse. سؤال دعوينا مدى حدا لنيسي وحلقوا طبيبي وحلقوا طبيبي تدوينا أصيبا إلى صحة